السلام عليكم dhamaantiin waan wada salaam meel walba adduunka ka joogtiin magacaygu waa Nuruddin waxaan leeyahay Ramadan Kareem maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo wax ku saabsan arrimo ku saabsan jimicsiga xilliga lagu jiro bisha barakeysan Ramadaanka maxaa yeelay waa muhiim haddii oo aad ahayd qof niid ku hayay xilliga Ramadaanka laga gaarayo in markii la gaaro Ramadaanka oo rabo inuu jirkiisa horumar oo macnaha natiijo ka arko waa xilliga wanaagsan oo aan dhihi karo oo macnaha ha noqoto jir dhis oo calool dhisan oo kale ama jir murqo dhisan oo kale waxay ahaataba maxaa yeelay waa muhiim xilliga lagu jiro Ramadaanka haddii aad tahay qof kaliya rabo inuu miisaanka iska rido oo macnaha aad raadinayna waa muhiim laakiin waa laba shay ayaa daruuri ah oo xilliga Ramadaanka lagu jiro labada shay oo waxay kala yihiin marka koowaad horta waa in aad ka fiirsataa waxa aad cunaysid maxaa yeelay xilliga lagu jiro Ramadaanka sida ognahay maanta dhan soomneed xilliga markii afurka la gaaro wixii guri laga kariyo ayaa muhiim ku ah inaad cuntid maxaa yeelay niid uma haysid cuntada noocay cunaa iyo cuntada noocan aan iska dhaafaa laakiin waa muhiim in aad mowqif aad leedahay oo aragtid bishaas inaad jirkaada horumar uga gaartid aad isku daydid in aad iska ilaalisid waxyaalaha aan sidaan dhaqan u leenahay oo kale inaan cunno xilliga afurka ay tahay sambuuska burka oo kale iyo wax walba oo guriga markaas la kariyo oo diyaara afurka in aad ka fiirsatid ma dhahayo way xun yihiin ma dhahayo macaan macnaha dhadhan male oo macnaha cunto macaan maaha laakiin waxaad ka hormarisaa niidaada in aad mowqif ka gaartid jirkaada sida aad ugu fikiraysay inaad jirkaada horumar ka gaartid oo aad iska ilaalisaa cuntooyinka noocaas sidoo kale biyaha la qaso kale oo macaanka aad ugu badan yahay shaaha macaan oo kale in aad xilliga afurka iska ilaalisiin oo hal mar aad wada cuno kaliya xataa maaha jir dhiska aad u daynayso cuntooyinkaas muhiim ayay macnaha muhiim waaye in aad hal mar wax wada cunin xilliga afurka maxaa yeelay iska dhaaf inaad jimicsi ahdide waxaa laga yaabaa inaad taraawiixda xataa ay ku gafto taas waa inaad ka fiirsatiin maxaa muhiima inaad cuntid xilliga afurka waxa ugu horeeya horta aan ognahay waa biyaha iyo timirta kabacdi markii aad maqribka tukatid oo afurka uu diyaar u yahay haddii oo adiga horta aad qof single aad tahay oo aad jimicsiga hore u jimicsan jirtay ama hadda rabo inuu jimicsiga xilliga Ramadaanka lagu jiro bilaabay oo rabo inuu horumar ka gaaro jirkiisa ilaan aad diyaarsanayso cuntadaada ha ahaato cunto oo clean ah oo wanaagsan ha noqoto sida chicken oo kale malaayiga bariis yar oo brown ah oo aad ku cuntid oo cunto yar oo fudud ah ama ha noqoto wheat bread waxa loo yaqaan oo kale rooti qamadi ah oo sandwich oo macnaha aad ahaan u subsatid oo ama chickenka ama malaayiga ama qudaar yar aad ku dartid oo aad cuntid wax yar oo fudud markii afurka inaad mar walba aad cuntid sida calooshaada full zaid aad u dareemin oo cunto yar oo nafaqo leh maxaa yeelay cuntooyinka sambuuska aad ku bilaawdid iyo burka iyo wax walba saliid ku badan yahay afurka cuntid caafimaad ahaanna ma fiicno jirkaada ma fiicno ka iska dhaaf jimicsiga caafimaad ahaan xataa kuma fiicno marka waa inaad ka fiirsatiin cuntooyinka noocaas ah haddii aad qof family aad tahay macnaha sida u rabtid cuntada waa u sheegi kartaa qofka cuntada ku karna xaaskaada ama haddii aad family ku nooshahay oo aad macnaha qaabka aad u rabtid waxay ahaataba inaad cunto yaro macnaha nacfi leh inaad cuntiin kabacdi habeenkii oo dhan waa cunaysaa cunto soma so iyadoo saas ay tahay waa inaad every 2 hours ama 3 hours aad cunto yaro fudud mar walba aad cuni kartid mar ha noqoto adoo cunaysid sweet potato oo macnaha iyo kun haddaad cunaysid aad cuni kartid ama qudaar oo chicken ama malaay ku jiro aad wax nafaqo leh oo macnaha jirkaada u fiican inaad cuntid tan ugu muhiimsan qofku waa inuu habeenkii dhan uu biyo u cabaa biyaha waa muhiim inaad mar walba ka tagin
oo habeenka dhan biyaad zaid u cabtaa. Tan kale aan ku darayna waxaa sidaan hore u sheegay biyaha macmacaan iyo shaaha macaan, sidoo kale soodhooyinkan waa inaad iska ilaalisiin, aad cabin mar walba xilliga ramadaanka lagu jiray xilligan lagu jirin inaad iska ilaalisiin. taas waa muhiim. xagga cuntada waa kaas. waxaa xagga labaad, qofka oo doonaya inuu jimicsiga xilliga ramadaanka lagu jiro rabo inuu aado jimka ama guriga rabo inuu ka suubiyo, horta midda koowaad waa inaad iska ilaalisiin adigoo sooman horta jim ha aadin, maxaa yeelay halis waaye, ma fiicno run ahaantii. laakiin markii aad afurtid ood wax cuntid, waxa ugu muhiimsan horta qofka biniaadanka xilliga ramadaanka lagu jiro waa inuu cibaadada ilaahay badiyaa, maxaa yeelay cibaadada ilaahay waa muhiim. wax walba adduunkan waxaa ka muhiimsan xagga aakhiro. hadaad taraawiixda markaad soo tukatid oo kale oo aad awoodi kartid inaad jimka aadid, haddaad jimka qoran tahay, kaliya isku day inaad 1 hour kaliya jimku spend garaysna waqtigaada aada ka badanin. sidoo kale haddii aad jimka macnaha membershipkeen ama aadan lahayn, aad guriga kusuubin imaatid taraawiix oo kale inaad guriga kusuubisid, ha noqoto caloosha adoo kusuubinaysid, ha noqoto macnaha beryar adoo guriga ku qaadaysid ama push-up, waxay noqotaba. maxaa yeelay niidaada ama goolkaada waxaa waaye mowqifkaada inaad jirka horumar ka gaarsiisa xilliga ramadaanka lagu jiro. marka sidaan hore u sheegayba 1 hour kaliya kusuubi haddaad jimka tagtid, iyo sidoo kale guriga. haddii aad qof hore macnaha usuubin jirin jimicsiga oo mar walba cardio waxa loo yaqaano ku bilaabo oo macnaha zaid usuubin jiray xilliga ramadaanka lagu jiro, isku day inaad yaraysid oo aadad badanin, zaidna aada ugu ordin, maxaa yeelay wadnahada zaid u shaqeynaya, maadana waa somneed. safety waa muhiim xagga macnaha oo waana khatar inaad iska ilaalisiin oo low intense waxyaro low cardio waxa loo yaqaan inaad suubisid oo si fudud kabacdi birahada suubisid. taas waa muhiim. haddii aad hore qof u jimicsan jira oo aad tahay oo 5 beri aadi jiray, isku day inaad 4 beri ka dhigtid xilliga ramadaanka lagu jiro, oo kaliya aad ka fiirsatid waxaad aad cuntid sidaa horumar uga gaartay jirkaada. haddaad ahayn qof hore u jimicsan jirno hadda bilaabay oo kale xilliga ramadaanka oo kale lagu jiro 3 ama 4 jimicsi ka suubi isbuuci jimicsiga jirka. isku day inaad mar walba jimka tagtid ama guriga aad joogtid oo kale aad jimicsigaa suubin lahayd inuu kala duwanaado. mar walba jimka tagtidna aad taqaantid wixii beri aad suubin lahayd. taas waa muhiim. laakiin mar walbo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inuu qofka oo xilliga ramadaanka lagu jiro iska ilaaliya cuntooyinka nacfiga lahayn, oo isku dayaa mar walba inuu cuntooyinka nacfiga leh uu badsadaa. marka haddii aad fadlan haddaad videogan faa'iida u aragtay ama ku anfacay, asxaabtaada share la dheh meel walba adduunka ka joogtiin. mar labaad waxaan leeyahay ramadaan kariim, khayr ayaan ii dhaaf.